waxay caadiyan ahayd dagaal ka yimid hogaamiyaha Kuuriyada Waqooyi balse hadda ah soo dhaweyn diiran. Telefishinka dawladda ayaa laga sii daayay muusig soo dhaweyn ah markii uu salaamayay Kim Jong-un wafdiga Kuuriyada Koonfureed. Wuxuu si toos u sheegay in dalkiisa uu joojinayo hubka nukleerka haddii uu Maraykanka ka helayo damaanad qaad ammaan. Waa markii ugu horreysay uu soo jeediyo heshiis caynkan ah iyo sidoo kale in uu joojinayo tijaabada gantaalada inta ay wadahadalladu socdaan. La yaab ma ahan in mushkiladan muddada dheer soo jirtay lagu dhammeeyo qodobadan fiican. Waa qorshihii ugu muhiimsanaa 10 sano. jawaabta madaxweyne Trump ee Washington ka timidna waxay ahayd mid taxadar leh oo uu ku qanacsan yahay. maxaad ka geysatay wadahadallada saaxiibtinimo? ma aniga maya waxay la tahay cidina inaanay fahmin markii kaftankaasi aan sameynayay laakiinse waxaan u malaynaa inay ka dhab tahay waxaana ay runtii dhab uga noqotay waxa weeyaan tallaabooyinka aanu qaadnay hadday tahay cunaqabataynta aanu saaray Kuuriyada Waqooyi iyo haddii ay tahay gacanta aanu ka helnay saaxiibada iyo Shiinaha taasoo weliba aanu qabno inay wax badan Shiinuhu samayn karayaan. tijaabada gantaalada Kuuriyada Waqooyi waxay caqabad ku noqotay siyaasadda arrimaha dibadda ee maamulka Trump. wuxuu kaga jawaabay cunaqabatayn iyo wadahadal adag. waxaanu kala hortegi doonaa dab iyo cadho. waxaanu sheegayaa wiilka gantaalka inuu rabo inuu jar iska xooro. bisha dambe ayaa la arki doonaa dhoolatus military oo ay wadajir u samaynayaan Maraykanka iyo Kuuriyada Koonfureed. waxayna Pyongyang markasta u aragtaa diyaargarow dagaal. Washington ayaa mar kale caddaysay in tallaabo military ee qorshaha ugu jirto ilaa ay ka arkayso Kuuriyada Waqooyi oo qaada tallaabo dhab ah oo muuqata